runtii maanta farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen waa kulan aynu ku daahfurayno gudiyadii heertayeedka hay'adda dhowrista tayadu runtii ay yeelanayso waa gudiyo qaran oo wanaagsan runtii hawl fiicanna qaban doona ka hor waxaa si rasmi ah barnaamijka inoogu furi doona gudoomiyaha hay'adda oo inooga xog warrami doona barnaamijka iyo waxa uu ku saabsan yahay runtii haddaan idinka yara taabto standardku muhiimaddu u leeyahay ilaalinta tayada waa albaabka ilaalinta tayada ama waa shayga ugu horeeya waayo shaygii aad eegaysay ee aad baadhaysay haddii aadan cabirkii ama standardkiiba aadan haynin dee waxaad baadhaysaa oo badani ma jirto marka aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa waa idin soo dhaweynaynaa run ahaantii hawshanna waa hawl aad qaranka u qabanaysaan waayo standardku markuu inoo dhammaado fulinteeda mas-uuliyadda waxaa iska leh hay-adda laakiin ganacsataduna mas-uuliyaddooda way leeyihiin in shayga ay ka ganacsanayaan ee dalka ay keenayaan uu heertayeedkii iyaguna ay qayb ka ahaayeen curintiisa qaybna ay ka ahaayeen dadkii aqoonta u lahaa shaygan hadday dawo tahay hadday raashin tahay hadday agab kaloo la isticmaalaya uu yahay in halkii lagu ilaaliyo oo aan heertayeedkani noqonuun waxaanu anagu intaanu soo qaadanay aanu dabadeedna ku amarnay in la fuliyo oo aanan u eeginba muxuu ahaa saameynta ku yeelan karo xagga dhaqaalaha ganacsatada xagga fulinta iyo muxuu ahaa in uu heertayeedkani hirgeli karo iyo in kale ujeeddada markaa guddiyada loo sameeyey waxa weeye guddiyadii inay noqdaan platform ama meel lagu wada hadlo laga doodo la isla eego heertayeedka qaabkii loo sameynayey iyo shay kasta ama guddi kasta waxa ay soo saarayso inay yihiin muxuu ahaa shay laga eegay ama standard laga eegay dhinacyo badan